abaadir odawaa maxamuud oo ka mid ah mas-uuliyiinta canshuuraha dowladaha hoose ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa miino gaarigiisa loogu soo xiray ka badbaaday saaka aroor hore waxaana miinada ay qaraxday xilli uu gaariga ka degay islamarkaana uu galay goobtiisa shaqo inkastoo miinada aysan geysan khasaare nafeed ayaa haddana waxaa jira burbur ay u geysatay dhismaha xarunta canshuuraha ee gobolka oo gaarigu uu ku dhex qarxay xilliga ay miinadu qarxaysay goobjoogayaal ku sugnaa xilliga uu qaraxu dhacay xarunta canshuuraha ayaa STN-TV u sheegay in uu qaraxu ahaa nuuca gawaarida lagu soo xiro waxaana daryanka qaraxa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Jowhar sidoo kale abaadir odawaa maxamuud oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyay inuu ka badbaaday miino gaarigiisa loogu soo xiray oo la damacsanaa in lagu qaarajiyo inkastoo uu si toos ah warbaahinta ula hadlin waa markii ugu horeysay oo Jowhar ka dhaco qarax miino oo mas'uul gaarigiisa loogu soo xiro iyadoona dad aad u fara badan ay isugu soo baxeen goobta uu qaraxu ka dhacay maadaama reer Jowhar uu ka cusbaa nuuca qaraxa maanta Jowhar ka dhacay weli kama hadlin mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo hay'adaha amniga oo aan xiriiro kala duwan la sameeyay Ismaaciil Baleen wararka STN Jowhar